waad u jeedaa waxaan radayna waa meydkii al-shabaab maanta waxa waaye waa maalin kale taariikhiya waxaan haynaa meydkii shabaabaan raro haynaa qoryaho hubkoodii waa kan beeka imkaana kamida sabano aakayaal beeka meel laga hay meydkii horiyaan qaado haynaa meesha aan joogno waad aragteen waa oo baaladoonti waa tana marka meydkaana rabnaa inaan geyno ilmaha idin dhibi jiro xoolaha idin ka qaadi jiro idin baadi jiro waa kuwaas inaan foolasho hor aan tusnaan rabnaa baabuur gaariyaal badan ay kala saaran kuwa biyahay raaceen marka waad arki doontiin haddana intaad aragtiin wax kalena inaad soo aragteen oo filaad ka timideen xagga goobta ka dhacay waa halkaan waa oobaale dagaalku wuu socdaa waad u jeedii webigaa la iskala tilaabay marka guulaan rajaynaa insha Allah soo galnay dabcan horta magacayga kuma bilaabin magacayga inay yaqaaniin umaleynaa shabaab haday muuqaalkayga arkaan magacayga waa Saciid Fanax shabaabow horta waa isnaqaanaa maanta isma baran horena waa idin kugu sheegay waxaan damacsana aniga kaliya ma ahane waxaan dhamaantay damacsanahay waxana soo kiciyeen waa ogtihiin waxa dhamaanta waa ogtihiin waa kuwana qoryihiin beekaymadiina sabinadiina meedkiina waa kana daadsan meesha waa kana taliyihiin waa kana kii kala gacan kaliya ahay waa kana kii idin hogaaminayo kow idinku hogaaminayo waa kana saakana marka idin kala hadlayo waa maqliiseen waxaan la hadlayo waa shabaab kii waxaan u sheegay baanay dadka ku dhiirigeliyaan ninkaas shaati guduudan leh oo taliyaha ah oo meesha yaallo waa tumay waa arkeenay ulu ku tumay asoo galiyahay ulu ku tumay waa gelinayo xoog ku gelinayo gacmay ka hadlayeen asii waxay dhahayeen waa jabeena gala waa u sheegnay inaan haleera aan jibino gacankooda anagu haysano waa kala hadalnay yaan baan leedin sheegin ilmo yar yarow wiilal Soomaaliyeed waa kuwaan inaan dilna ugu matalagina anaga laakiin qofku haduu dib ku dhex cararo waa dhimaa waxaan la hadlaa dadka dhalay ilmahan nimanka dimbilayaasha ilmaha ay soo dirayaan dadka dhalan la hadlaa cidday hadda wax u nool yahay waxaan kula talaynaa ilmeera ka reebad waa dimbilayaal nimankan dalal shisheeye ka yimideen anaga magacaygu waa Suldaan Daahir Axmed Gaabow salaadiinta muduloodan kamid ahay waxaan koofiga soo qaadno ciidanka u dhex jooga inaan dhiirigeliyo lagana sifeeyo wadankan shabaab nimanka la yiraahdo war taleefan la soo diray iyo handadaad laguma joogi karo dadkan waa dadka dhulkan iska lahay 15 sano ayaa mataqaanaa dadka la handaday asa malafsi iyo waxba meel igu kan lahayd maanta waa soo dhamaatay maanta webiga lagu daadshay meyd Kooriya yaala hubkii laga soo qaataa yaala waa cadayn ummadda Soomaaliyeed rabto aan rabno inaan u dirno marka gumaysi waa dhammaaday leesma gumaysan karo Soomaali cadaalad ay u baahan tahay nabad ay u baahan tahay diinteeda iyo sharafkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda inay ilaashatay u baahan tahay nimankan waa ogtihiin diinaan wadnaahay intii yiraheen heer waxay gaartay gabadha inta la waco leeyahay kaalay ii imaw idoon xaaskaaga ahayn ila jeefa leeyahay haday diidana gaala taa leeyahay waa ka zinaysaa haddaana ka zinaysayna gaala tahay diinteenu waxaas ma qabto waana diin ku dheel iyo diin ku cayaar waa iyo diintoo la fool xumaynayo